السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabay inaan wax yar ka idhaahdo siyaasadda iyo qalalaasaha intii ugu dambeysay muddadii sanadkeeda ugu dambeysayba ka socday Soomaaliya, khaasatan waxaan rabay inaan codkayga ku biiriyo dadka ka soo horjeeda waxa uu wado madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan ka mid ahaa dadkii aad iyo aad u taageerayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigii la dooranayay ilaa iyo muddo dhowna maxay ahayd siyaasaddiisa iyo ku qanacsanaa ilaa iminkana aaminsan inuu aad iyo aad uga roon yahay dhammaan qolyahan kale isku sheegay siyaasiyiinta ee intaa isu xaganaya siday meesha uga ridan lahaayeen. laakiin haddana waxaynu qorannay oo la yidhaahdo dastuur. muddaxilaadkaagu markay dhammaato you have to go, simple and plain. You have to go, that's it. 4 years you're gone. If you're re-elected then maybe, but you just have to go. You cannot cling on to the office and power and try everything possible to stay in power. It just doesn't work that way. aniguna waxaan ku biirinayaa marka codkayga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, you have to let it go. siida doorashadu ha dhacdee dalkan iyo dadkan ha ku celinin wixii soo daashaday 31 sano ugu dambeysay ama 30 sano ugu dambeeyay ilaa iyo kolba meesha arabta ka soo qaado kaba badan intaas oo waxa laga yaabaa mar inay 35 gaadho qolo walba si rabto meesha ka soo qabatee ha ku celinin ka leexo waxaan aad ku kacay saayad wadaaye maxay ahaydey kolba intaad Facebook-ga tikriyer ku soo qorto aad leedahay maxay ahaydey ninkii dawladda ugu sareeyay xilka labaad yaa xilka ka qaado haddana maxay ahaydey aad ciidamada dul dhigayso xafiiskiisa ma imaan karo. waxaasi wax adeeg ku qabta ma ahan, wax dadka Soomaaliyeed qabtana ma ahan, wax mutaqaanaa dadkii ku taageerayay ee niyadda jabisay niyadda ka dishay qabtana ma ahan. So please let it go. Please let it go. waan ogahay qolyahan kugu xeeran dhammaantood ha ahaado Sheekh Shariif, Xasan Sheekh, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, even Khayre, wax allaala wax khayra iyo nabada ama maxay ahayd wanaag ay dadka dalka iyo dadka u wadaan ma jiraan. haddana that's the rule, that's the way it is. You just have to let it go. For example, Cabdiraxmaan Cabdishakuur yaa mataqaanaa dadkan uga cadcad waana qofkaan u malayn qofkaasi inuu ugu xun yahay siyaasiyiinta Soomaaliya mudan yahayna in la soo taago maxay ahayd maxkamad. inkastoo rag fara badani ay kulli ayaguna mudan yihiin in la soo istaajiyo maxkamad, laakiin ninkaasi wuxuu galay sidii aniga la tahay treason ama khaa'inul watan mudanna in ciqaab la mariyo. ma rabo inaan sidaas ii galo caawa adigay ku joogtaaye. Please let it go, let it go. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii la dooranayay dhowr waxyaabood baa anigu isla uu qaban doonaayo wuu kaga roonaan doonaa dadkii hore. kow waxay ahayd la dagaalanka al-shabaab. tii ma dhicin, si militarina ulama dagaalamin al-shabaab, qaab mukhaabaraad ahaan oo intelligence ahaan ulama dagaalamin. al-shabaab intii hore way ka awood badan yihiin waqtigan la joogo, waxayna laayeen dadkii ugu fara badnaa intii ay laayeen maxay ahaydey muddaxileed madaxweyne kaleeto. qodobka labaadeen islaa waxay ahayd la dagaalanka musuqmaasuqa. musuqmaasuqa Soomaaliya iminka ayuu ugu xun yahay abid. 180 wadan oo laga qaaday qiimeyn
Soomaaliya waa wadanka labaad, wadanka koobaadna waa Ciraaq iminka ka ugu dambeeyay sanadihii ka horreeyay iminkana inagaaba ahayn kow wadanka ugu xun musuqmaasuqa abid the most corrupted country. Why do we have to be like the worst in every aspect? Why do we have to be? We don't have to be this way. We're better than this. I know for sure we can do better. It just doesn't make sense. intaasoo wadana adduunka wadanka ugu xun inaan noqono meel walba soo qaado wadanka ugu xun. It just doesn't make sense. inay la sii taraaraxdo maro meel kalena galo marka taasina waa musuqmaasuqa. midda kaleeto waxay ahayd dejinta maamulka iyo isku dayidda soo noolaynta hay'adaha dowladda. taasina ma dhicin waynu ognahay meesha wax marayaan. midda kaleeto wuxuu galay gaboodyo ama wuxuu ku kacay falal aad iyo aad ugu litay gudnimana ku ahaa dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed. kow waxaa ka mid ahaa dhibistii qalbi dhagax. ma rabo inaan mataqaanaa ay sii faahfaahiyo. labo waa ku magacaabidii ama ku qeexidii ONLF argagixisanimo. waa waxaan maskaxdaada geli karin. xasan sheekhi xataa jigjiga ka dhaanteeyey asagaa ka daray. waxaasi wax la qaadan karo ummadda Soomaaliyeedna u qalma oona laftii mataqaanaa intaa dhibaato iyo jirrab iyo rafaad soo martay qabtana ma ahan. kulli waana wax la isku xisaabtami doono asaga iyo Khayri iyo Sanbalooshiyo waxay rabana sheegtaane iyo dhammaan intan yar ee mataqaanaa u qaaday dabadhoonka waa. qodobkan saddexaad wuxuu yahay asaguna aan ka liidan fal aad iyo aad xumaan ahaana aad iyo aadna u dhawaayo oo weli ay socoto dabagalkiisii dilka Ikraam Tahliil. gabadhiyada maxay ahayd reerkooda usoo toostay oo inta gabdhaha Soomaaliyeed ognahay dhibaatada iyo rafaadka lagu hayo aysan badnayn gabadh Soomaaliyeed madaxa qaad oo mataqaanaa rag dhexdiisa wax ka qabsata. halkii gabadh soo baxday halkii gabadh aan oranay laakiin gabadhii soo baxday mataqaanaa meelaha ugu adag mukhaabaraad Soomaaliya inaad ka shaqeyso oo al-shabaab iyo qoliyo kale si walba ay ku raadsanayaan u dagaalamaysay in ayagii ay mataqaanaa ayagii islahayd huwashe iyo waxay ku yihiin gabood ay si cold-blooded ay ku dilaan. oon ognahay reerkoodii iyo qoyskii gabadhu ay ka dhalatay balambalkii iyo rafaadka ay baraha bulshada ka wadeen oo ilaa iyo iminka aysan wax cadaalad arag. kulley sidaan la iskaga hadhmaayo dee cadaalad baa imaan doontaa marun ha gaadhe mudana madaxweyne. This is the way it is. ma umaleynaya inaad soo laaban doonto. cadowgaagaa badan dal iyo dibad. taasina waxaaba laga yaabaa dee inay waxoogaa positive ku tahay laakiin haddana waa sidan baryihii dambe buu soo dhaqmayne. just let it go وتوكل على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.